أنا سومالي نمد إيجا بلابتا إيجونا دماتا قبر بدلاندرا نبدا مركز waxaan ka sheekeynaa buluugi Soomaalinimada ah nabada gabar Puntland ah ano ilaa wasiil ilaa wargala haysta oo mudug oo dhan gacanta ku haaya baa waxa iri nabad baa qaadanaya reerka mudug laha soo dagaan mudug reerka laha soo dagaan qofka kaliya Soomaali oo sameyn kara waa qof reer Puntland meel uu xoog ku haysto oo awood ku haysto qofka kaliya oo nabad intuu qaata ka soo bixi kara waa qof Puntland u dhashay qof kale ma aha markii laga soo baxayay mudug ilaa wasiil ilaa wargala wiil Puntland dara qori la fadhiyo oo xoog ku qabsada oo 2 sano ay baraystay dadkii wadan kale maxay ku dhaheen ilaa barax lay soo daga qofka waa inuu horta wax kala fahmaa calankayga qofka kaliya oo Soomaaliya qof walba oo Soomaaliya dhulkii uu qabsaday awood iyo xoog baa looga soo saaray habar gidir waxay qabsatay baydhabo xabad baa looga soo saaray waxay qabsatay meesha la dhahayo beledweyne xabad baa looga soo saaray aniga laakiin meesha aan qabsaday nabad baan uga soo baxo waxa iri dhulkaaga intaasna adaa iskale intaana anaa iskale yaa sameyn kara calanka Puntland qofka yaqaan bas sameyn kara muxuu ka dhigan yahay nabadda iyo barwaaqadu ka dhigan yahay maxaa noo soo haray cagaarkii baa soo haray cagaarka maxay tahay waa nabad waxa waay barwaaqadaada falo waa inaan barka barwaaqada cagaarka ahayd gabadha joogta meesha ugu dambaysa oo xuduudda Itoobiya iyo xuduudda Kenya iyo xuduudda dhinaca kale oo la dhahayo dhinaca kale oo wajaale iyo xuduudda Djibouti kulli inaan ganacsi la sameeysto waa ani waxaan leeyahay bado ani waxaan leeyahay dekado anigu waxaan leeyahay xoolo qof walba oo Soomaali waxa raba dhulkayga inuu yimaado inuu ka ganacsadaan raba qof aan col ah ma jirto ganacsiga ugu badan oo hadda ka socda meesha la leeyahay bari Boosaaso dadka baray waxa waa nimanka hiiraan degan xawaadlo waa xawaadlo maxay u bareen dadka waxay u bareen nabadda iyo amniga baabuur waxa arkaysaa intuu ka soo baxay Puntland taariikhda Puntland ku dhagan oo beledweyne imaanay maxaa yeelay dib kuma qabo marka horta dadku saas ah nimanka reer Somaliland maxaan uga baahana wixii siyaasada kala aragti baan kana anagu federaal baana iyaguna waxay rabaan in la kala baxo 60kii lagu kala baxo wixii siyaasada waxay u taalaa baarlamaanka iyo madaxtooyooyinka u taala anaga nooma taalo anaga laakiin maxaa naga dhaxeeya inaan dad darisanahay wada ganacsan karno iyaguna ay naga qaataan bagaashka anaga bagaashka ka soo qaadano isdhexmarka bulshada ganacsiga colaad la'aanta intaas naga dhaxaysa laakiin siyaasad shaqo kuma leeyin siyaasad dawladda shaqo ku leh laakiin anaga maxaa shaqo ku leeyin isdhexgalka bulshada waxaan rabnaa gabadha reer Soomaaliland inay imaato ugbaad aragsan waa ogeyd cali masaarka dani bay ka qayb galaysa wiilkii kale oo imaanayo isagana xanuunsana waa ogeyd madaxtooyooyinka Puntland lagu soo dhaweey annaga iyo kala dhaqan inaan nahay reer Soomaali waxa ku ogaataa fiqi oo wasiirka dhamaayo arrimaha gudaha ahaa baa wiil yar oo Soomaali intuu u yimaaday buu calanka Soomaaliya korka ka saaray adeer waxaan rabaa inaan geeyo Hargeysa waxaan rabaa inaan geeyo calanka Soomaaliya marka dhakhtarka ka soo noqotid calanka geynay bal muu gal hareeri iyo calanka marka hore uu geeyo ceelbuur oo galgaduud kan baqan Hargeysa meel ba naga ma jirto Hargeysa meel ba naga ma jirtee gal hareeri iyo ceelbuur iyo meesha la leeyahay jilib iyo ma aratay mugeeyo meesha la leeyahay buur xakabe mugeeyo bu'aale ila Hargeysa waaba nabade Hargeysa waxa way dib mala cambulo carab saaran waa wuxuu ku leeyahay xumaan meel uu ka gaaray calankii buu wiilka intuu dusha ka saar wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan geeyo Hargeysa calanka ceelbuur gee oo galgaduud ah waa nin reer galmudug horta ceelbuur ha geeyo Hargeysa Allah ha gaarsiyo Puntland sharafta iyo karaamada ay sameeyay maxay tahay wiilka yarka madaxtooyada Puntland la geeyay madaxweyne ku xigeenka lagu toora loo geeyay meel walba la geeyay calan Puntland leeda korka laga ma saarin maxaa yeelay anaga reer Puntland waxaan naqaanaa dhaqan ah qof walba wixiisa in lagu amaan geliyo anaga naqaana dawladeena taqaana wiilka yarka tusaale idin ka soo dhigay wiilka yarka calan korka laga ma saarin dad waxa jira marka la ag istaago ilaa ay calanka kugu masawiraan maahan aan neefsan karin ajiro dadkaas yaa waay marka ma taqaana waa dadka aan kalsoonida lahayn anaga reer Puntland aan kalsooni yaa leena qofka haduu noo imaado ixtiraam wixiisa ku ixtiraamna sagal Mustafa noo imaatay calanka Soomaaliland gacanta ku xirnay
lalama hadlin laakiin dad waxaa jira taalada orod kugu geynaayo wax kugu kordhadaaya saa haddaa u ag istaagtid wuxuu ku leeyahay bal horta calankaan iga qabo dadkaasna dad dhaqan gooni alahoo la yaqaano waa fiqiyoo kalaa ka mid ah wiil yaroo miskiin ahoo adeer uu u yahayo dhakhtar u socdo oo dowladdii wax u soo raadsaday waa calankii Soomaaliya korka laga saaraa waa lagu dhadhajinaa dhig lagaga siina marka annaga waxaan rabnaa walaalayaalo dadka inaan wada noolaano oo gabadha joogta ma aragtay Buulaxaawo iyo ta joogta Gaarisa iyo ta joogta ma aragtay Wajaale iyo ta joogta Looya Cadde kulli inay Puntland inta iskugu wada imaato halka ganacsigeena uu 100% noqdaan rabnaa xumaan qoraa qofaan u qabna male Puntland dhexdeedana dhaqan waxaan u leenahay anaga reer Puntland haddaan nahay colaada sokeeya ma naqaano gabdhaha reer Puntland waa gabdha garabka is wada qabsada wiilasha reer Puntland waa wiilal isku tiirsan anagu arinteenu waa Puntlandernimo waa federaal waa Soomaalinimo saasan garabka isu wada haysanana ganacsigu waa furan yahay ilma adeerayaal ganacsigu waa furan yahay yaa la xanaaqin dadka aan dekadaha qabin oo waxay ku ganacsadaan haysanina xoolaha keena dekadahan ka dhoofineynaa marka anigu halkaasaan soo dhigay oo hinta iyo baroorta iyo